asalaamu calaykum aqaartii maalba joogtiin markii muuqaal cusub ku eegdan wararkii ugu dambeeyay suuqa yaqbaaradada hata la diiwaan gelinayo Liverpool oo kalsooni weyn ku qabta inay helayaan Barcola United oo markaan u dhaqaaqaysa soo xirgelitaanka Camavinga Real Madrid oo markaan wacday Man City maxaa laga hadlay xaaladda Rodri Arsenal oo laba difaac oo muhiim markaan doonaysa inay soo qaado Chelsea oo ku dhow difaac ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen iyo warar kale ayaan eegaynaa haddii muuqaalkaashan wala garay kanalkana subscribe nasar haddii aan ku bilownaa aqbaaradii ugu dambeeyay warar badan ayaa hata la diiwaan gelinaya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa markaan si toos u wacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City baxay kala hadleen waqtiyadii la soo dhaafay waxaa soo baxay waliba majalada daas ee warinaysa in Real Madrid ay heshiis ay la gaartay xidiga lagu magacaabo Rodri iyaga oo laacibkan la soo wareegaya laakiin Real Madrid ayaa markaan sheekada dhinaca kale u wada oo markaan nimanka Man City ayaa waceen waxayna kala hadleen arintaas inay waxba kama jiraan tahay heshiisna aysan la gaarin laacibka lagu magacaabo Rodri waliba Real Madrid dhexdeeda ayaa markaan arinta ku kala qaybsan dhinac Mourinho oo hogaaminayo waxay doonayaan in ninkan keeno dhinac kale tana Perez iyo xulufo ayaa taagan oo diidan ninkan in la soo qaado ugu dambeyn warbixintu haatan waxay leedahay sida majalada The Goal ee daabacayso kooxda reer Spain ayaa wacday kooxda Manchester City si ay gebi ahaanba meesha uga saarto warbixinada sheegaya in laacibkan heshiis ay la gaareen ugu dambeyn waxay leeyihiin wiilkiina anaga heshiis lama gaarin warbixinadaasna waa waxba kama jiraan warbixintan sidaan kale waxa ka horeysay bilii la soo dhaafay mid soo baxay Real Madrid ee gebi ahaanba sidaan kale u diiday inay Rodri daneynayaan ayaa jirtay maanta marka sheekadu waxay joogtaa in Madrid ay diidan tahay inay ninkan heshiis ay la gaareen dhinaca kale Mourinho iyo xulufadiisa waxay doonayaan in ninkan la keeno laacibkana Madrid lagu soo kordhiyo sidoo kale Man City dhinaceeda marka la eego Man City waxaa la soconaa inay doonayaan in heshiis cusub ay siiyaan laacibka lagu magacaabo Rodri waxayna rabaan inay sii haystaan si walba xaaladda Rodri haatan waxaa ka soo kordhaya in Madrid wax heshiis ay la gaarin si toosana Man City ee markaan u waceen xaaladdan ay ku wargeliyeen xaalad toole waqtiyada dambe waxaa soo baxayay in Real Madrid heshiiska shakhsiga la gaartay Rodri marka ugu dambeyn sheekadaasna daaqada ayay ka baxdayo marka waxaa la leeyahay Madrid nimankan ayaa waceen waxayna ku wargeliyeen in wax heshiis ay la gaarin wiilkooda diyaarna haatan ay soo ahayn laakiin Rodri wuxuu doonayaa bixitaan wuxuu doonayaa Madrid Mourinho iyo rag badan waxay rabaan ninkan in Bernabeu la keeno marka Perez iyo xulufo kalena waxay rabaan ninkan in la soo qaadino meeshiis iska jooga marka kooxda kubadda cagta Madrid ugu dambeyn aqbaaradaas ayaa ka imaanaya xaaladda Rodri sheekadaas ayaa ka soo kordhaysa adigu maxay kula tahay fikirkaadina la wadaag dhinaca kale to sheekooyinka haatan jira qayb waxa ka Liverpool iyo Barcola waxaan la soconaa Liverpool inay si weyn u raadinayso Barcola inuu doonayo u dhaqaaqitaanka Premier League Paris Saint-Germain in diyaar u tahay laacibkan inay xitaa waxaan la soconay in Liverpool dalabkii koobaad oo furitaan oo 85 milyan gaariya in ninkan ay ka gudbiyeen si walba haate Liverpool waxay kalsooni weyn ku qabaan in Arsenal iyo kooxaha kale ee daneynaya ku garaaci doonaan Barcola iyagoo laacibka raba inay ku soo xirigeliyaan lacag gaariya 100 milyan marka majalada dasan xilligan la joogo waxay daabacaysaa kalsoonida Liverpool heerka ay taagan tahay sida ay laacibka u daneynayaan sida ay u raadinayaan xaaladdu halkee marayso dhammaan ay daabacayaan warbixinada ay haatan dasan daabacayso ugu badnaan 90 kamid waa la wada soconaa waa inay nimankan wada hadal bilaabeen Paris Saint-Germain maalmihiisa soo dhaafayna warbixintaas waa maqasheen aan xataa waa idin la wadaagay ka soo gudub Liverpool markaan kalsooni weyn ayay ku qabaan Barcola waa laacibka Liverpool listigooda ugu sareeya waa laacib cid kale aysan markaan ku hormarinaynin waa laacib dadaalkiisa si weyn ugu jiraan xitaa xalata waxa idin la wadaagay wararkii soo baxeen ay sheegeen in Liverpool ay doonayaan in Akliut ay soo qaadaan oo Paris Saint-Germain ay ka dul qaadaan si walba Liverpool Barcola waxay u rabaan si aan caadi ahayn Arsenal waxaan la soconaa inay ku soo fashilmeen xidiga lagu magacaabo Morgan Rogers oo Chelsea ay ka dulqaaday laakiin markan waxay doonayaan iyaguna Barcola inay u jeestaan laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kalsooni weyn ku qabta helitaanka Barcola dhinaca kale to Arsenal iyo warbixinada haatan laga diiwaan gelinayo Arsenal waxay doonayaan laba difaac oo Ingiriis ay rabaan waxay ka kala tirsan yihiin Manchester City iyo Aston Villa waa John Stones iyo xidiga lagu magacaabo Master Konsa labadan wiil ay rabaan inay soo xirigeliyaan majalada lagu magacaabo Sky Sport waxay haatan warinaysaa in Arsenal ay si weyn u dareynayso John Stones iyo xidiga kale lagu magacaabo Konsa rabaana markan inay soo xirigeliyaan Arsenal ayaa raadinaysa bedelka xidiga lagu magacaabo Master William Saliba oo muddo dheer garoomada ka maqnaanaya walow isbuucan oo London yimid si uu tijaabo caafimaad u maro xaaladiisana loo qiimeeyo Arsenal ayaana markan diyaar u ah in labadan wiil ay soo qaadaan waxaan la soconaa in Chelsea ay iyaduna qayb ka tahay dagaalka loogu jiro John Stones ayna doonayaan in Arsenal ay ku garaacaan si walba macalin Mikel Arteta wuxuu doonayaa difaaciisa marka
horyaalkan inuu adkeeyo maadaama labada wiil ee kale ah ee John Stones iyo xidiga kale lagu magacaabo Konsa ay wax badan ku soo kordhi karaan sida oo asigu haatan uu qabo maadaama Aston Villa ay diyaar haatan weyn wiilkooda inay iibiyaan arintaas ayaana meesha waxay ka dhigi kartaa mid aad iyo aad u adag laakiin Stones qaab bilaash ayaa lagu helayaa Inter Milan iyo kooxo kaleetana Stones way dareynayaan oo Chelsea ay ugu weyn tahay isku soo wada doob sheekada Arsenal laba difaac oo cajiib ay doonayaan waana Konsa iyo xidiga lagu magacaabo Master John Stones dhinaca kaleeto sheekooyinka hadda jira qayb waxa ka ah Chelsea ayaa doonaysa soo xirgelitaanka laacib Bosniana una ciyaara kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen waxa lagu magacaabaa Karim Aljakabovic ayaa lagu magacaabaa Karim Aljakabovic markan wuxuu noqonayaa laacib Chelsea ee si weyn u doonayso favoritkooda waaye ninkan ay rabaan inay soo xirigeliyaan sida ay warinaysa majallada The Standard oo ka soo baxday gudaha England laacibkan waa talanta Chelsea si weyn ayay u raadinayaan waxayna rabaan inay soo xirigeliyaan waxaan la soconaa Chelsea inay wada hadal kula jiraan laacibka lagu magacaabo Maxi Loqen oo kooxda Crystal Palace wada xajidoodin oo meel fiican ay marayaan sidoo kale Bebe Javaria oo isagoo dambeed bidix ka ciyaara inay Chelsea ay wada hadal kula jiraan waliba ay rabaan maalmaha soo aadan inay xaaladiisa ay gabagabeeyaan xidigan ayaa soo raacaya waa talanta cajiiba waxna lagu magacaabaa Karim Aljakabovic markan wuxuu noqonayaa bartilmaameed kooxda kubadda cagta ee Chelsea wuxuuna ku qiimeysan yahay lacag gaaraysa 30 milyan dhinaca kale sheekada Manchester United iyo Eduardo Camavinga kooxda United ayaa doonaysa soo xirigelitaanka Camavinga Manchester United ayaa markan diyaar u ah ninkan inay soo qaado waxayna rabaan qalbadooda dhexe markan inay soo adkeeyaan United ayaa hore u soo wareegtay laba ciyaaryahan oo muhiim ah waa Andres Santos oo Chelsea uga yimid ee xidiga kale lagu magacaabo Yuri Tielemans oo kooxda Aston Villa ka yimid haatan majalladaha kale BBC Sport iyo kuwa kale The Standard ay ku jirto waxay leeyihiin Manchester United ayaa markan dardar gelinaysa u dhaqaaqitaanka Eduardo Camavinga iyagoo doonaya laacibkan inay safkooda ku soo daraan sidoo kale majallada The Standard waxay leedahay Manchester ayaa markan explore ku sameynaysa ama saameyn ku sameynaysa ninka lagu magacaabo Camavinga xaaladiisa waxayna rabaan inay soo qaadaan Real Madrid iyadoo dhinaceeda markay leeyahay Madrid waxay diyaar u tahay iibinta Eduardo Camavinga maadaama Arjen Tchouameni haatan heshiis cusub oo qalinka ugu dooga Madrid waxay doonayaan in ninka yiraahdo Camavinga ay daaqada ka saaraan United ayaana haatan diyaar u ah inay markan isku soo darto Mano Kone Camavinga Carlos Baleba iyo Adam Martin saddexdaas laacib ayay rabaan inay ku soo daraan safkooda iyadoo hore u soo wareegay Yuri Tielemans iyo xidiga kale lagu magacaabo Andres Santos macallin Michael Carrick ayaana doonaya isbedel muuqda oo dhinac walba ah inuu ku sameeyo kooxda la yiraahdo Red Devils jamaahiirta Manchester United kadib macallin Carrick markii loo magacaabay horyaalkan meesha ku dhameysteen iyo bandhigooda ay arkeen nimanku markan waxay leeyihiin sanadan iyo sanadaha dambaba dabkeena wuu shidan yahay oo anagu waxaan nahay kuwa horyaalka ka iftiimaya suuqeynina waa mid fiican marka jamaahiirta shaadin xumraa waxay u muuqanayaan kuwa markan saaxadda wada sheekeysiga iyo qaraaxada markan si fiican ugu soo biiraya nimanku hore luuqyada ayay ku jireen laakiin markan banaanka ayay iskeenayaan waxay rabaan si weyn markan inay u xifaaltamaan marka United marka iyaduna suuqa ayaa markan u shidan laba laacib oo cajiib ay soo qaadeen haatana Camavinga iyo Mano Kone iyo rakal ay raadinayaan marka waan arkaynaa wixii soo kordha haddii muuqaalka hesho la garay kana ka subscribe nasar goodbye